Agaasimihii hore ee Hay'adda Nabad Sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isaga oo ka jawaabay kadib go'aankii uu shalay Muqdisho kaga dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha ee ku aadanaa doorashooyinka soo socda ee 2026. Xamse Cabdi Barre ayaa shalay daafuray geedi socodka hirgelinta hannaanka dib u heshiisiinta qaran ayaa shalay sheegay in aan mar dambe dib loogu laabi doonin taandhada Alfayzone isla markaana xukuumaddiisu ay ka go'an tahay inay qabato doorasho qof iyo cod ah. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka jawaabay arrintan ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu oo mar walba ka shaqeeyo rabitaanka madaxweynaha si ugu soo maamusho doorashada soo socota. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyay inuu Xamse hore si xun u soo maamulo doorashooyinka Jubbaland 2019 maadaama uu ahaa gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee maamulkaas. Wuxuu kaloo ku tilmaamay in Ra'iisul Wasaaraha ay ku habboon tahay inuusan ka hadlin hufnaan doorasho balse uu dib u xasuusto wixii uu hore u soo sameeyay. Qoraalka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaana sidaan u qornaa: mudane Ra'iisul Wasaare, shalay ayaad fahamsiisay sababta uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuugu magacaabay xilka Ra'iisul Wasaaraha dalka, waana inaad u maamusho doorashada soo socota ee 2026. Mudane Xamse, shalay waxaad hogaamisay doorashooyin ku dhisnaa 3 isqori, laakiin madaxweynaha ayaa qofkii raba kala baxayo Jubbaland 2019. Ma waxaad rabtaa inaad maamusho doorashooyin ku dhisan 3 xisbi baa tartamaya, laakiin madaxweynaha ayaa xisbiga raba kala soo baxayo. Mudane Ra'iisul Wasaare, wax kasta oo kale waa ka hadli kartaa, laakiin fadlan ha ka hadlin hufnaan doorasho, ayuu yiri qoraalkan oo bartiisa Facebook ku daawacay agaasimihii hore ee Hay'adda Nabad Sugidda Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.